barnaamijkeena xogta daasoon waxaynu ku soo bandhigaynaa lacagta warqadda ee doolarka Mareykanka oo xambaarsan qisooyin iyo cadeymo qarsoodi ah oo qaarkoodna si aad ah inoogu muuqanayaan inkastoo muuqashadoodu ay noo turjumayso in warqadani aanay ahayn lacag dal leeyahay oo keliya laakiin ay sidoo kale tahay warqad xambaarsan xogo iyo macluumaad sawiran oo aan ishaysan kuwaas oo haddii aad isku habayso oo isu geegeyso oo sawir walba aad halkiisa geyso oo ku soo baxayaan dhacdooyin hore iyo qorshayaal soo socda oo lacagta ka dhex muuqda warbixinteennan kaga hadli mayno astaanta kooxda maasuuniyadda ee doolarka ka dhex muuqata iyo calaamadeeda lixgeesleyda ee magacoodu ku qoran yahay waayo arrintaasi waa mid aan dahsoonayn oo in badan oo inaga mid yahay la socdaan laakiin waxaynu isku laablaabaynaa warqadda doolarka si aynu u muujinno sirta ku duwan waxaana inoo muuqan doona qisooyin hore oo dhacay oo lacagta ku sawiran iyo qisooyin aan weli dhicin laakiin lacagta lagu sii sawiray daaqaadista xogtan waxaynu ka bilaabaynaa warqadda $20 inaga oo ballac ahaan bartamaha iskaga laabayna kadibna waxaynu istaagaynaa dhexda waxaana aynu bidix u leexanaynaa ilaa 25 digrii haddana 25 digrii oo kale dabeeto waxaynu ku daraynaa bogga kale ee qaybtii aynu laabnay haddaba si wacan u eg sawirka muuqda oo u eg dhismo gubanaya ma yahay dhismaad xasuusan karto haa dhab ahaantii waa dhismihii aqalka gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon oo gubanaya markii ay 11 Sebtembar 2001 Mareykanku la kulmeen weeraradii diyaaradaha rakaabka loo adeegsaday kuwaas oo mid ka mid ahna gashay aqalka Pentagonka laba ka mid ahna daartii ganacsiga adduunka ee magaalada Manhattan iyadoo sawirka labada daarood ee gubanaya oo isna ka muuqdo warqadda $20 adigoo si wacan uga bogan kara si aynu cadeymo dheeraada ugu helno xogteennan aynu raadinayno waxaynu baaris ku samaynaynaa warqadaha kale ee lacagta doolarka inaga oo marka aynu warqadda $5 isku laabno qaabkii hore oo kale uu inoo soo baxayo sawirkii caadiga ahaa ee labadii daarood ee xaruntii ganacsiga adduunka ka hor intii aan la duqayn oo la dumin warqadda $10 waxaana inooga soo baxaya sawir muujinaya markii ay diyaaraddii koowaad duqaysay mid ka mid ah labadii daarood warqadda $20 waxaana inooga muuqda markii ay diyaaraddii labaad duqaysay daartii labaad ee xaruntaasi markaynu u gudubno warqadda $50 waxaa inoo muuqanaya labadii daarood oo si rasmi ah u gubanaya inagoo warqadda $100 ka dheehanayna dumitaankii iyo burburkii daarihii xaruntii ganacsiga adduunka waxaa hubaala inaynu si wacan uga boganay dhacdooyinkan iyo muuqaaladan oo soo metelaya cajalad filim musalsal ay ku duuban yahay haddii aynu hore uga sii soconno waxaa in badan oo inaga mid yihiin la socotaa in warqadda cusub ee $100 la soo saaray sanadkii 2009 laakiin warqaddaasi waxay sidaa qisooyin iyo dhacdooyin aan wala dhicin oo la mid ah kuwa hore isweydiintu waxay tahay maxaa sanadka laftiisa loo sameeyay lacagta cusub maxaase dhacay sanadka runtii waxa uu ahaa sanadkii uu madaxweyne Barack Obama qabtay madaxtinimada dalka Mareykanka haddaba taasi miyay xiriir la leedahay dhacdooyinkan soo socda ee ku sawiran warqadda $100 si aynu jawaabta u raadino waxaynu qaabkii hore oo kale isugu laabaynaa warqadda $100 waxaa inoo soo muuqday sawir qayb ka ah sawiradii hore ee inoo soo baxayay waa muuqaalka guud ee xaafadda Manhattan ee magaalada New York oo aanay xilligan ka dhex muuqan guriyihii Two Towersku mar kale waxaynu dheehanaynaa sawirka muuqaal soo shabahaya in qarax ka dhacay oo qiiq iyo uuro isku xidhay maxaynu u fasiri karnaa taa bal aan daawano khudbadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama Russia's actions are a problem. They don't pose the number one national security threat to the United States. I continue to be much more concerned when it comes to our security with the prospect of a nuclear weapon going off. khudbaddaasi waxay ahayd sanadkii 2014 waxaana Barack Obama warwar ka muujinaya hubka nukliyeerka ee dalka Ruushka oo uga baqayo xaafadda Manhattan waana bagcadda dhabta ay ka soo muuqatay warqadda $100 barnaamijka gudihiisa waxaynu ku soo aragnay in warqadda $20 ay labadeeda dhinac ka muujisay laba muuqaal oo kala duwan haddaba $100 sidaas oo kale waxaa dhanka kale kaga xardhan muuqaal iftiimanaya qarax atomika ah oo dhacay waxaana gebagabadii inaga xasuusa in qaybka iyo mustaqbalka waxa soo socda oo dhan ilaahay uu og yahay subxaanahu wa ta'aala